fiirso fankaaga. barnaamijkan toddobaadkiiba wakhtigan oo kale ayaad ka dhagaysataan Radio Muqdisho. haddii aad moodeen magool ama Maryam Mursal ama Hibo intaba ma aha waa Cumar Dhuule iyo markii fanka uu bilaabay. Cumar Dhuule wuxuu ku dhashay magaalada Burco 1939 Dhuule oo aabihii ahaa waxa uu dhalay 5 caruur ah oo Cumar uu imika ka hadhay. Dhuule wuxuu ahaa fanaan kamid ahaa raggii ugu horeeyay ee hoobalnimada ku caan ahaa. marka ay tahay khamiista maghribkii meelaha maxfalka ay laga tumayo waxa aad ku arki jirtay inan yar oo gaaban oo ilkacas oo la socda Dhuule. wuxuu ahaa imika ninka la yiraaho Cumar Dhuule. haddaba bal Cumar oo maanta halkan marti inoogu ah oo ila fadhiya aynu weydiino aabihii Dhuule Cali sidii fanka uu ku soo galay iyo sidii uu u heesi jiray. sidaad idris u sheegtay weeye odaygu heesaabu ahaa gacantana waxbuu ka tumi jiray sida imika waqtigan xaadirkan dhaxalkiisa wuxuu hayo marka inta aan ka xusuusnay heesi uu qaadi jiray bal hadda mid baan ku yar albin doona sidii dhugdhug lee dhul dheer mare baa dhawaaqayga loo dhegaystahay maryama maxeeboy madheedhka waa reeg midhihii ka bis laaday baa tahay intaan ka xusnay buu ka mid yahay. Cumar Dhuule yaraantii wuxuu dugsi ka galay magaalada Berbera halkaasi oo ka mid ahaa ardaydii ay macallimiintu jeclaayeen. marka caruurtu ay isku timaado galinka dambe ee quraanka ay dhameeyaan waxa macallinku uu u heesi jiray oo uu akhri jiray qasaa'id caruurtu ay ku nafaxaadi jireen oo ay aad u jeclaayeen. Cumar Dhuule wuxuu ka mid ahaa ilmaha yaryarka ah ee codka macaan ee macallimiintu ay u jeclayd. siiba waliba macallinkaygu aad buu ii sii jeclaa macallinshadaba ha la odhan jiray. marka idris waxaa jiri jirtay markaan macaamada ku jiray ardaygu markuu jis dhameeyaba ardayda kale saaxiibadiisa iyo macallinkii waxbarayba waxaa laga casuumi jiray xaafadda ardaygu ka dhashay. markaasaa ilaa malcaamada ilaa aqalka galbis sida aroosyadii laysu gelbin jiray la samayn jiray. marka macallinku qudhiisu dooq buu leeyahay hadba ardayga ugu cod macaan ayuu odhan jiray shaahidka wax ka qaad iyadoo aan ka mid ahaa. markaan shaahidkii aan qaadi jiray waxbaan kasoo qaadi doonaa waxaa ka mid ahaa yaa muhaymanu yaa salaam sallimna walmuslimiin binebi khayri lana wabaho bilmuuminiin kuwa laysku kaxayay ka mid ahaan jirtay. marka makhribka ay tahay shaaficiyada iyaduna gooni bay ahaan jirto عبدو بسم الله ورحمن وبرحيم دائما الإحسان الحمد لله قديم الأول على خير بقيب لا تحاولي على بعين كسيدنا هنجرت wuxuu fanka ku soo leexday markii guduuda carwo iyo gureen jire ay ku heesi jireen ay oran jireen guduuda carwoy gugii la arkaba allow yaa gashaanti ka dhiga. waqtiga magaalooyinka Hargeysa Berbera Burco way isku heesi jireen oo magaalo kasta waxay lahayd koox dhalinyar ah oo magaalada kale xifaalaysa. heesaha haddaba halkaasi la isku tirin jiray waxaa jirtay in kooxahaasi ay isku duuli jireen
oo la qaban jiray maxfallo waaweyn iyo mafrasiyo koox waliba kooxda kale ay ku xifaalayn jireen cumarna wuxuu ka mid ahaa magaalada burco iyo berbere labadaba ragga u heesa amaba u xifaaleeya ee caanka ku ah xagga gabayga iyo heestaba runtaa weeyaan idris wixii aan ka xusuusnahay iyagana inaan wax ka taataabto adiga dadweyne dhegeysanayaba waan jeclahay waxaa jiri jirtay berigaa magaala la isugu heesi jiray marka shacbiga aad buu fanka markaa u jeclaay inay jeclaayeen fankana waxaa ku tusaya yani fanku dhaqdhaqaaq buu lahaa oo marka magaalada loo soo heeso magaalada kale heesi jirtay markaas albaab la isu soo dhoofi jiro hargeysa intay soo dhuftay berbere iman jirtay markaasay berbere dhoofi jirto hargeysa tegi jirtay markaasaa markaa magaalo waliba fanaaniintooda iyo dumarkooda mashxarada iyo tirigyadooda iyo waxooda dhan bay wadan jireen adigu reer berberaad soo maha reer berberaan waxaa jirtay hadal caan noqday oo berbere lagu yidhi ma xasuusan tahay waan hayaa waxay ahayd berberi magaalo kulul weeyaanoo had iyo jeer barafkii alaab caynkaasaa lagu isticmaala marka hargeysaa waxay leedahay haddii ay barafkiiyo biyuhu ka madhaan ma badda isku guri bartiitiibay leeyihi iyadoo farabaas lagu hayo magaalada berbera oo kaftanka laga haysto khaasatan bari oo dhan oo hargeysaa loo yaqaanay oo loo daayay fanka meeshii uu ka soo unkamay ama ka soo baxay ayaa waxaa ku soo baxay niman balaayo ah oo ereyo caan markii dambe noqday oo ilaa iminka la xusuusan yahay hargeysa u tiriyey cumar bal ma xusuusan tahay aad baan xusuusnay inkastoo mid ka boodi doono waxaa ka mid ahaa nimaan weli dhoof ku dheeraan aabbihii uga dhimanin maal dhemela haddana dhargayoo dharkuun bedeshaa haahey ma dhaqaxa herar baa risqa dhala unba aduu hadalkii ku dhammaaday wuxuu xifaalihii socdaba waxaa lagu tumay fanaaniintii waaweyneyd ee magaalada hargeysa ee ay ka mid ahaayeen guduudo carwo iyo guroon jire inay hoosta wax kala hayaan ilaan iyagu xifaalaha kuma ay jirin oo waxay ahayn fanaaniin waaweyne waxaa lagu tumay inay magaalada hargeysa wax u soo dhisaan oo hadalla ay u sameeyaan dabeeto halkaasi iyagana laynkii ayaa soo galay waxay yidhaahdeen giddigiin hererow intaa gudidaan garaabiyo jaad intaa gurataan guduudo carwana gudaha dhigataan guroon jire awalba caynkaas isagana u keentaan meesha bal waa waxaa ku gurtaan galeeriis bay wuxuu cumar dhuule dabeeta yimid magaalada hargeysa oo uu gacan weyn ka helay cabdilaahi qarshe oo macallinkiisa ahaa iyo ninkii fanka u bilaabay wuxuu dabeeta ku biiray kooxdii la ohan jiray walaala hargeysa oo markaa ay aasaaseen cabdilaahi qarshe iyo ninka la yidhaaho xuseen aw faarax ee hobalka weyna cumar markaasi wuxuu qaatay door la yaab leh oo ah inuu masilo gabadh wakhtigaasi oo haweenka soomaalidu ay ku koobnaayeen guriga oo aanay dibadba u soo bixi jirin marka la eego xagga fanka cumar haddaba bal aynu waxoogaa innagoo ku bilownin barnaamijkana codkii uu ku heesi jiray markaa bal hayna maqashiiyo riwaayaddii ugu horreysay ee uu ka qayb galay erayadii riwaayaddaasi ku jiray iyo wixii heesa ee halkaasi uu ka xasuusan yahay ee markaa la tiriyey anigoo diyaar u ah waxaan jeclahay haddii codkaygu intii hore berigii siduu dhublaan jiray uu ka yara weynaado yani ka raalli adaya riwaayadda la oran jiray hilaac inaad wax nooga taataabato bal waxay ku dhisnayd ulajeedadeedii iyo ereyadii ay isdhaafsanayeen markaas adigoo gabadha masilayay iyo wiilka riwaayaddu ay ku socotay idris waxay ahayd riwaayad wadaniya marka waxaad ka garan doontaa kolley kelimaadka midhaha ay is odhan doonaan inanka iyo inantu iyagii baanan wax kasii bilaabaya hadda
hadlaya halaco wahabartamaya halaco nahereraime hodane hereraime hodane horta aan qalile hodane goblantee halaco hooyadeen goblantee halaco haadku hayga dhergee halaco cumar dhuule waa fanaan ama hoobal caan ah oo codkiisu macaan yahay gacantiisuna degan tahay dherarkiisu waa meel dhexaad waana nin bulsho ah oo dhalinyaradu ay jeceshahay wuxuu maanta ka mid yahay abwaanada waaweyn ee xagga fanka Soomaaliga ah waxaana uu caan ku yahay gaar ahaan caashaqa isaga oo aad moodo noloshiisu inay kuba dhisnayd ama ku xidhnayd xaggaasi heelooyinkiisu aad u badan yihiin haddaba aynu bal ka soo qaadano heeladii ugu horeysay ee uu isagu sameeyo oo ahayd ila heshii isagoo nooga sheekayn doona bal waxa ay ku timid saad u sheegtay weeyaan Idris ma waxaad jeceshahay inaan heestu siday ku soo abuurantay ku sheego aan ku bilaabay habeenada ka mid ah ayaa anigoo gurigeyga jooga oo aan aniga haweenaydaydu gurigeyga iska joogno oo sheekaysanayna ayaa waatan Soomaalidu tiraahdo qof hal toosan baa qofna tuurala leh ayaanu kaftanay marka kaftankii kelmad baa aniga ila yara qaloocanatay marka laakiin sax ahayd dhinaca qaloocan iska kay taagtay real waan xanaaqay marka wax dhibaato leeyahay meeshii marka geystay oo qof dumareed waxaanay marka abaal gud lahayn baan dhibaato weyn baan geystay waxa dhacday marka in gabadhiiba dutay oo xaafad kale oo dutay habeennimaan ay ahayd 3 saac ama 9 saac kolba 2 kiilo yaqaan markay tagtay ee la qaban karo waaye ay dutay ayaan markaan anigu keligay guriga ku soo haray dib isugu noqday aan wareede maada gartar mise waa laga gartaray waxaan dhacday markaa inaan ogaaday inaan anigu gartaray oo qofkan dumar aan meel kaga dhacay nabarna meeshii gaadhay haddaba mushkiladu waxay ahayd haddii waagu iiga baryo sida Soomaalidu u caadiyeen shashafo iyo garnaq iyo mashaakilka caynkaas uu imanayo waagu markuu baryo aanse anigu aanan ka helin badanaaba in aniyo reerkayga naloo garnaqo nala dhex galo halkii baan dibad fariistay waxaan sameeyay hees aan markaa isleeyahay ku qabooji oo ku soo celi haddii ay ku suurta gasho markaan codkii dhamaystay waana yara dureysnay garaallo codkii markaan dhamaystay midhii ayaan saani tagay gurigii gabadha joogtay waan garaacay qoftu mara la joogtay waxaan mooday inaan dagaal mushkilo waxaan dagaal uma jeedo kii nabad ka talin jiray baan sitaay aan la yara hadlay adigu in yar dibadda wax yar nooga yar bax way nooga baxday gabadhii oo xoogaa dhiig madaxeeda ka muuqdo tiiraysan ma nool galay hadal kale ma bilaabin daba heestii ma bilaabay ruuxi habboonba marun halaabo hoy duni hagaagsan la heli maaye ruuxi habboonba marun halaabo duni hagaagsan la heli maaye haataniyo danna ilaaheshee haataniyo danna ilaaheshee hadal macaane hanaan wanaage ilaaheshee mahe ilaaheshee hadalkii duulaan khadar haleeline
higsan maanta waxay horeetee hooy hadalkii duulaan qadar haleeline higsan maanta waxay horeetee haataniyo danna ilaahishee haataniyo danna ilaahishee hadal macaane hanaan wanaagay ilaahishi mahe ilaahishi heestu way fara badnayd laakiin isla markaaba waa heesaha heesta aan ugu jecelahayo idriso waxay iga furatay heestaas shashafo iyo darnaq iyo magaalo dhan oo ogaato halkiiba inta ilmada iska tirtay xaawaladeedii iska soo raacday laakiin cumar dadku marka heestaas oo kale ay maqlaan ama raadiyo ka maqlaan ama meel kalaba waxaanay u qaataan maaragtay yani hadal qofka fanaanka iska sameeyey laakiin waxaa iminka muuqataa heelooyinkan ay sameeyaan fanaaniintu in ay wax ku jiraan cilmi ku fadhiyaan cilmi bay ku fadhiyaan sida runta tahay cumar bal aynu haddana hore u soconno waxaa jirtay heelo kale oo iyaduna caan noqotay oo la yidhaaho hana loo garnoqo heeladaasina waxay la tahay in iyaduna ku xidhnayd ama isla xaafadda runta tahay bal iyadana namaqashii inaan ka wada sheekeeyo inkastoonay waqtigu aanu igu saamaxaynin heesta qudheedu midhaad ka garan kartaa bay la tahay idris ama dadku waa inta badan looma baahna inaad sharaxdo wacaynkaas cumar waa tano waad aragtay isbedel weyn baa ka dhacay fanka tan iyo maalintii aduu aad gashay ama uu bilaabmay see baad u aragtaa isbedelka xagga fanka ama heesaha ka dhacay see baad u aragtaa adugu wallahi idrisow waa fiican tahay baa aniga ila tahay kolley wax walibana sidii ay ahaan jireen ma ahaadaan waxba iska bedela inay fiicnaadaan iyo inay xumaadaanba way leeyihin labada laakiin waa fiican bay ila tahay aniga adigu riwaayadaha sidaan hore u soo sheegnay waxaad masir jirtay doorka haweenka iminkase waxay la tahay raggun baa lamid ahay raggun baad lamid tahay ma ka qayb gashaa riwaayadaha iminka sida runtu tahay muddo maya intii muddo ah maya mana diyaari haddee waxaan u malaynayaa haddii halkii heerkii anigu aan joogay dad iga nasiiya ay yimaadeen ma jeclaysan inaan riwaada ka qayb galo laakiin aan iska heesahayga iyo badayda kale fanka anaa iska fan jeclo iskala qayb galo ma iska jeclahay cumar maxaad marka aanad markaad firaaqada leedahay sidee baad waqtigaaga u qaadataa sida runtu tahay ninba dookhale baa ila tahay
markaan shaqada ka baxo dabcan waxaa iska weeyaan kamankayga iyo qaylaad iyo dhalinyaro inaan iskaga dhex jiro wax kaloo balwada i weheliyaa se fili aan maay inay balwadu waa iska badan tahay rumay ayaantan dambe cumar wax hawla oo ama aad haysa xaggii ama heesa cusuba ma jiraan ilaahayba iima waaya bay ila tahay aniga waxbaan kaa maqashin doonaa hagaag cumar waxaad xagga haddaynu eegno musicianska ama xagga wax tumidda waxaa jirta laxni aad leedahay ama far gooniya oo si gooniya aad u tunto baa jirta مثل ما هو بالله نبى جعان بالوي قانا إن أديك جعان تادو وجار إن هالكيبا مارتي مرة دات عبد الله قرش عيدك إسكو دقنا متى دينا دي عبد الله قرش روي إن هالكيبو كاسو كلا يعني وحوين إدرس lagu sheegay oo adiga maanka halka Soomaalidu ka tiraahdo Cabdullaahi wuxuu ii bilaabay heestii ugu horeysay intii ka dambeysay laakiin waxaan u maleynayaa maskaxdaydan waxaan ka helay inaan ku darsaday iyo waxdee dad kale kulay fanaaniin ugu horeeyay tumi jireen oo aan dariiqadoodii raacay miyaad gashay dugsi musical lagu barto noocaas haba yaraatay kaasi waa iga reebin yahay hadaan ii dambeyn Umar waxa jirta heelo la yiraahdo barwaaqo oo aad dhawaan tirisay oo aan jeclahay inaan ka xadinayo laba eray inaad nooga qaado oo aan wadaya hasan jeclay kamid tahay
ayaad adigu beertee ma markuu ballaadhee jidhkaygii ku baad tidhi ka bax faryarabidee ma markuu ballaadhee jidhkaygii ku baad tidhi ka bax faryarabidee hays oo dhan barwaaqo habinaf kulamida hababinaf kulamida ileen u baahan buraha ka culus yahay inkastoo badi iyo webi amaba xad sooriyo ka culus yahay inu baashayal dilay bodhari u madax yahay malaha bilifku maqashay inu baashayal dilay bodhari u madax yahay malaha bilifku maqashay hays oo dhan barwaaqo na hays oo dhan barwaaqo adun baabid qabay mahadsanid waxa aad dhegaysanayseen Cumar Dhuule oo toddobaadkan marti inoo ahaa inta aynu kulmi doono nabadgelyo